kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada shabakada farshaxan oo alaaba idiin soo gudbisaa turjumaado warbixino iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan. haddii aad nagu cusub tahay ha moogaanin inaad subscribe tiraadid, hana hilmaamin inaad taabatid gambaleelka ama jeliska si aad u noqotid daawadaha koobaad ee warbixinaha aan soo diyaarino. maanta waxaan idiin hayaa 3 shay ama 3 arrimood oo ay fiican tahay inaad caado ka dhigatid noloshaada. haddaba ku soo dhawaada qormadan oo muuqaal ah iyadoo dhammaystiran. jimicsiga. marka dunida la eego, dadka Chinese-ku waa dadka ugu caafimaadka badan dunida, sidoo kalena waa dad badankoodu caata yihiin, taasoo ay sababtay socod badan oo ay sameeyaan. haddaba qofka uu ka socod badan ama haddaan si kale u dhigno, qofka uu ka neeftuur badan yahay ayuu ka caafimaad badan yahay. inaad caadaysato ugu yaraan maalintii inaad socoto saacad qura ama aad ordo 10 daqiiqo oo kaliya waxay kaa caawinaysaa inaad ka farxad, caafimaad iyo firfircooni joogto ah. akhriska. akhrisku wuxuu kobciyaa maskaxda isla markaana wuxuu kor u qaadaa garaadka iyo wacyiga qofka. qofka wax akhriya waa qof edaab leh oo dulqaad badan. akhrisku wuxuu qofka ka dhigaa mid caqli badan oo xigmad leh, isla markaana hadalkiisu miisaaman yahay. ingiriiska ayaa ku mahmaaha empty vessels make most noise, oo macnaheedu yahay weelka maran isaga ayaa ugu qaylo dheer marka la garaaco, taasoo la odhan karo waxaa loola jeedaa qofka maskaxdiisa wax aqoonihi ku jirto, maadi iyo diiniba ma hadal badna. sida awgeed waxaa muhiim ah inaad buugta la saaxiibto oo aad wax akhriska caado ka dhigato. cabitaanka biyaha. iyadoo la isku raacsan yahay cabista badan ee biyuhu inay ahmiyad gaar ah u leedahay caafimaadka, ayaa haddana waxaa jira dad badan oo aan ku baraarugsan faa'iidooyinka caafimaad ee cabista biyaha badan. waxaa muuqanaya sawirro muujinaya in dadka qaarkood ay aragtidoodii hore ee cabista biyaha ay wax ka bedeleen. dadkan ayaa isugu jira kuwo helay waanooyin dhakhtar iyo kuwo sida nolosha caadiga ah la qabsaday inay biyaha aad u cabaan, kuwaasoo ay ka dareemeen caafimaad iyo firfircooni. waxaa daliil u ah arrintan oo muujinaya fahamka biyo cabista, iyadoo ay caadi noqotay in lagu arko goobaha shaqada iyo wadooyinka dad wata caagado casri ah oo ay biyo ku jiraan, kuwaas oo laga soo dhaamiyay. biyo cabista badani waxa ay qurxisaa maqaarka, waxaana jidhka siisaa fuuq. biyuhu waxay ka hortagaan cudurro badan oo ay ka mid yihiin madax xanuunka, calool istaagga iyo weliba gaaska. sidoo kalena waxay caloosha ka caawiyaan dheefshiidka. haddaba waa muhiim inaad ku dadaasho cabista biyaha badan, maadaama oo jidhkeennu uu ka kooban yahay 75% biyo ama hoor.